الرحيم وحرunta aqoonta dhaqanka iyo sayniska ee loo soo kaabiyo carro edeg waxaad kala socon kartaa dhammaan social media sida uu leeyahay gaar ahaan YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Instagram-ka. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Su'aashaasi maalmaha soo noqonaysay ee ku saabsan fulkaanaha ka qarxay gobolka Rift Valley laga soo bilaabo gobolka Anfarta ee Djibouti ilaa halkaas oo ka tagayo Tanzania saameynta uu ku leeyahay Geeska Afrika siiba uu Soomaaliya ku leeyahay ayay dad badan su'aashaasi ayay soo weydiiyeen waxaana u muuqataa in dad badan ilaa imika ay ka hadlayaan Ethiopia iyo saameynta ay ku leedahay laakiin waxay aniga ila tahay maadaama marka hore aan sii sameeyay saadaasha noocaas 2 sano horteed sida YouTube-ka careeda ku aragteen fulkaanahan imika qarxay doorman ma ahayn markaan leenahay waa doorman uu fadhiyaa weeyaan oo macnaheedu eruption ma sameeyo gariir ma sameeyo xagga Anfarta markaan naahno isagu doorman ma ahayn xagga doormankii waxa weeyaan buurta Sow iyo buurma dusheeda ariqaasi xagga soo maraya doormanka ee marmar gariirka sameeyo Soomaaliland gudaheega laga dareemo siiba Hargeysa Gabiley Burco mararka qaarkood Berbera aad looga dareemo waliba magaalada Boorama iyo Jigjiga iyo intellectualka ee qoladaasi kala gashanaad markii hore doorman buuha blue tectonic waxaanu nirey qaaci dhulka hoose ee soconayay ayaa markan active noqday dilaacaasi 11 jeer buu imika sanadkan gudihiisa dhacay dilaacaasi sanad wal oo laga soo bilaabo 2000 ilaa hadda taasi iyada wax macruuf oo la isaga yaqaan way ahayd laakiin maxaa dhici kara ayaan oran karnaa sanadkan gudihiisa imika bilaabmay horta fulkaanic doormanka ahaa ee Boorama dusheeda mari jiray ee buurta Sow ay saameynta weyn ay ku lahayd isagu waqtigan active ku noqday horena waxaan u sheegnay magaalada Boorama ay biyaha soo galeen biyaha dhanaan oo biyihii badda oo halka uu ka soo bilaamayo fulkaanigu ah taa macnaheedu wax hore waxay u nirey in halkaasi badi ay noqon doonto mustaqbalka oo Ethiopia qayb kamid ah ay xakan soo go'ay doonto gobolka Hawaasha iyo intaas xagan kale aan Anfarta soo go'ay doonto waxaan website-da qaar ku arkayay iyaguna research sameeyay oo leh Djibouti lafteeda ay saameynta ku yeelanaysa magaalada aniga laakiin waxay la tahay in la ku yeeleen haday magaalo saameyn ku yeelanayso magaalada oo khlayra oo Djibouti kamid ah inagu diinteena wax weeyaan in aynu mar walba aynu ka fogaano meelaha buurleyda ah ee gobolkaasi Boorama ee fulkaanigaasi eruption-kaasi fulkaaniga ee marka hore doorman aha imika active noqday inaynu ka soo fogaano oo dadka aynu ga digniin noocaasi aynu ka siino aynu sugno waqtiga mustaqbalka sayna hore u sheegnay lama garan karo waqtiga fulkaan uu dhacayo cidima saadaalin karto seismic sensor-ka waxana ay yiraahdaan ee dhulka hoose qaaca maraya blue tectonic ayaa la eegaa heerka uu marayo iyo levelka uu taagan yahay marka waxaan oranaa fulkaanihii ariqiisi wuxuu noqday buurta Sow dusheeda active ku noqday marka deegaanka iyo deegaameysiga laga ilaaliyo ayaa muhiim ah waayo already waxa jira magaalada Boorama qayb kamid ah inay biyihii dhanaan ay soo galeen baddo in la suga maaha ilaa waqtiga baddo ay meesha soo galayso dilaacaasi weynaanayo badna soo kala dhex galayso wixii faahfaahin inta ka dheer waad kala soo xiriir kartaan YouTube-ka careedeg. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.